xeeladaha guud ee qaranka Dr. Salabaan Maxamed Maxamuud oo ku sugan magaalada Garowe ayaa kormeeray laamaha garsoorka Puntland ee Garowe gaar ahaan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal iyo xafiisyada xeeladaha guud ee Puntland iyo maxkamadda sare. waxaana ku soo dhaweeyay halkaasi xeeladaha guud ee Puntland ku-xigeenkiisa iyo kusimaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland. xeeladaha ayaana mid u kormeeray xafiisyada shaqo iyo qaybaha maxkamadda gobolka Nugaal. Maxamuud Xasan oo Cismaan xeeladaha guud ee Puntland ayaa faahfaahin guud ka bixiyay kormeerka xeeladaha dowladda federaalka Soomaaliya, xusayna in la iska xog wareystay xaaladda guud ee garsoorka dalka. waxaa magaalada Garowe xafiisyada garsoorka Puntland noogu yimi kormeer xeeladaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Salabaan gudoomiyuhu wuxuu la kulmay dhammaan garsoorka ka howlgala ee gobolka Nugaal guddiga sare garsoorka maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka garsoorayaasha rafcaanka oo darajada koowaad xeeladayaasha dhammaantood waxaanu iska wareysanaynay geedi socodka cadaaladda ee dalka. annaguna waxaan uga warbixinay xaaladda garsoorka ee Puntland, asaguna wuxuu nooga warbixiyay xaaladda garsoorka ee dalka dhammaantiis. si fiican baanu arrimaha iyaga insha Allah isugu afgaranay. marka isagaan siinaya inuu kalmad ka yiraahdo wuxuu ku jiray guddigii ama wafdigii aaska qaran uu yimi halkaan insha Allah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Abdi Faarax waan tacsiyada halkaan uga diriyay Ilaahay ha u naxariisto. xeeladaha guud ee dalka Dr. Salabaan Maxamed Maxamuud ayaa kormeerka kadib xusay in indhayntiisu ahayd mid lagu kurgalayay xaaladda bahda garsoorka iyo cadaaladda Puntland, bogaadiyayna habka ay u socoto shaqada garsoorka Puntland. waxaan aad ugu faraxsanahay xeeladaha guud ee dowlad goboleedka Puntland inuu igu soo dhaweeyo xarunta garsoorka Puntland ee magaalada Garowe. waxaana aan ka dhageystay xeeladaha guud warbixintay garsoorka anoo la wada kulmay dhammaan qaybaha kala duwan ee garsoorku uu ka kooban yahay. xeeladaha tilmaamay ay u horeyso xafiiska xeeladaha guud ee dowladda Puntland iyo gudoomiyaha maxkamadda sare, golaha sare ee garsoorka, gudoomiyaha rafcaanka iyo howlwadeenada kale ee garsoorka ee kala duwan ee xafiisyada maxkamadaha iyo garsoorka kamid ah. ujeedada booqashadeeda waxay ahayd inaan kormeer ku sameeyo warbixintii garsoorkana aan ka dhageysto garsoorka dowladda Puntland talooyinka iyo horumarka iyo istaraatiijiyada dowladda federaalka Soomaaliya ee garsoorka la xiriirsanna aan uga warbixiyo waxyaalihii la xaqiijiyay iyo qaabkii horumarka iyo dardargelinta hagaajinta garsoorka Soomaaliya iyo meesha loo socdo iyo himilooyinka la rabo in la gaaro qaabkii loo gaari lahaa waxaas oo dhan. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa xeeladaha guud iyo madaxda kale ee garsoorka dowladda Puntland oo si fiican igu soo dhaweeyay. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.